السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكني سويال تي في عبد الرشيد جيلو له مالي وناكسن ومالين سلاسة بيشا فبرورينا ايتاي سديد طبعا سنة كناو يحي لبا كوني شانيا لباتن. هذا برنامجكنا مانتا waxaa kamida litiriga Israa'iil ayaa waxay ka baxeen dhowr goobood waxayna ku hareen 5 goobood oo istiraatiiji oo meelo buuro ah oo Lubnaan ay ka ilaalinayaan deegaamadaasi sida wararku ay sheegayaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhaxal sugaha Sacuudiga oo ku kulmay Riyadh iyagoo ka wada hadlay arrimo aad muhiim ah oo ay ka mid tahay Gaza. In ka badan 200 oo ururo caalami ah ayaa waxa ay qoraal u direen wadamada qaybta ka ah ee sameeya diyaaradda F-35 iyaga oo sheegay in diyaaraddaasi ay ka qayb qaadanaysay dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo gumaad ee Falastiiniyiinta. diblomaasiyadda sare ee Mareykanka iyo Ruushka oo ku shiraya magaalada Riyadh arrimo ay ka wada hadleen. nin 27 jir ah oo Yuhuudi ah ayaa waxa uu toogtay 2 Yuhuudi oo dhaawacay isagoo u maleynayay inay ahaayeen Falastiiniyiin arrimo cunsuriyada ku saabsan. safiirka Israa'iil ee Mareykanka ayaa waxa uu walaac ka muujiyay isla mar ahaantaana digniin ka soo saaray ciidamada Masar oo dib u dhis lagu sameynayo tiradooda la kordhiyay taasoo uu sheegay inay meesha ka saarayso heshiiska isla mar ahaantaana ay tahay tallaabooyin aan la aqbali karin. Masar ayaa iyana isniintii waxa ay martigelisay kulan muhiim u ah arrimaha dib u dhiska Gaza. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu gacan siinayo Iran dadaalada ay ku doonayso inay lacag ugu gudbiso Xisbullah iyadoo la soo marinayo dalka Turkiga. arrimahaas iyo arrimo kale ayaad ka daawan doontaa barnaamijkeena Sooyaal TV ee daawasho wanaagsan. in ka badan 200 oo ururo caalami ah ayaa ku baaqay in dalalka ku lugta leh soo saarista diyaaradaha dagaalka ee F-35 ay si degdeg ah u joojiyaan dhammaan gudbinta hubka ee Israa'iil iyagoo ka cabsi qaba inay ku guuldareysteen inay ka hortagaan in diyaaradahaasi loo adeegsado xadgudubka shuruucda caalamiga ah. warqadan oo ay saxiixeen 232 ururo bulshada rayidka ah ayaa isniintii loo diray wasiirada dowladaha Australia, Canada, Denmark, Talyaaniga, Holland, Norway, Mareykanka iyo dalka Ingiriiska iyadoo dagaalka Gaza uu gaaray maalintii 500. nin 27 jir oo Yuhuudi ah ayaa lagu xiray magaalada Miami ee dalka Mareykanka kadib markii uu rasaas ku furay 2 Israa'iiliyiin ah isagoo si khaldan ugu maleeyay inay yihiin Falastiiniyiin. Mordechai Brefman oo 27 jir ah ayaa la qabtay Sabtidii fiidkii waxaana lagu eedeeyay 2 dacwadood oo ah isku day dil oo heer labaad ah. warbixinta booliiska ayaa sheegtay in Brefman uu si ula kac ah u ugaarsanayay Falastiiniyiin markii uu rasaasta ku furay gaari ay saarnaayeen 2 nin. wuxuu 17 xabadood ku riday gaariga isagoo adeegsanaya baastoolad noocaas automatic ah. si kastaba ahaatee booliisku waxay xaqiijiyeen dhibanayaashu ay ahaayeen 2 Yuhuudi Israa'iiliyiin ah oo booqasho ku joogay Mareykanka. dhibanayaasha oo kala ahaaba la yiri Ari Rabi iyo aabihii ayaa markii hore u maleynayay in la beegsaday iyagoo bartilmaameed u ah weerar nacayb oo ka dhanay Yuhuudda. mid ka mid ah ragga la toogtay ayaa dhaawac ka soo gaaray garabka halka midka kalena uu si sahlan uga dhaawacmay cududda sida uu qoray wargeyska Israa'iiliga ah ee Ynet. Brefman ayaa lagu tilmaamay inuu yahay Yuhuudi reer Florida ah waxaana la xiray wax yar kadib weerarkaasi. mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaysan jirin wax muran ah oo ka dhashay weerarka ka hor taasoo muujinaysa in ficilkaasi uu ahaa mid si buuxda aan loo sababayn karin. warbixinta booliiska ayaa intaa ku dartay in Brefman uu sheegay saraakiisha inuu arkay 2 Falastiiniyiin ah oo uu toogtay kuna dilay gaarigooda. muuqaalka oo ay qabatay kaamirada ammaanka ayaa muujisay in Brefman uu gaarigiisii ku sameeyay leexasho U-turn ah ama degdeg inuu ugu soo laabtay gaarigii kale kadibna uu istaagay hortooda uu ka soo digay baabuurkiisii oo uu rasaas ku furay 2 qof ee saarnaa gaariga.
golaha xiriirka islaamka iyo maraykanka ee CARE ayaa ugu baaqay laamaha sharciga inay Braverman ku soo ogaan dacwad la xiriirta dembi nacayba oo adkayn doonta ciqaabta uu wajihi karo. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mark Rubio iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa ka wada hadlay qorshooyin ku saabsan Gaza intii lagu guda jiray kulan ay yeesheen sida ay sheegtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka Tammy Bruce. xogayuhu wuxuu xoojiyey muhiimadda ay leedahay in la helo qorshaha Gaza oo horseedi kara xasiloonida gobolka. Bruce ayaa sidaas ku sheegtay warmurtiyeed ku saabsan kulanka dhexmaray Rubio iyo dhaxal sugaha. Rubio wuxuu booqanayaa bariga dhexe kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka caraysiyey dunida Carabta kadib soo jeedintii la yaabka lahayd ee ahayd in dadka Falastiiniinta ay ku nool Gaza loo raro lana dejiyo dalalka kale ee Carbeed, halka Maraykankuna uu qaadan doono Gaza dib u dhisna uu ku samayn doono. labada dhinac waxay sidoo kale dib uga xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay xabad joojintii la gaaray bishii la soo dhaafay ee dhexmartay Israa'iil iyo Xamaas, waxayna ka wada hadleen xaaladda Syria, Lubnaan iyo Badda Cas sida ay sheegtay Bruce. xogayaha ayaa sidoo kale xusay 80 guuradii kulankii taariikhiga ahaa ee sanadkii 1945 dhexmaray madaxweynihii Maraykanka Franklin Roosevelt iyo boqor Cabdicasiis ee ka dhacay markabkii USS Quincy, wuxuuna muujiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo amni ee Sacuudiga iyo Maraykanka. Bruce ayaa intaa ku dartay. wakaaladda wararka ee Sacuudiga SPA ayaa sheegtay in Rubio iyo dhaxal sugaha Sacuudigu ay ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo caalamka iyo dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro nabadgelyo iyo xasilooni. Rubio wuxuu u yimid Sacuudiga isagoo ka soo ambabaxay Israa'iil, halkaas oo uu ka bilaabay booqashadii ugu horeysay ee gobolka tan iyo markii loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. wuxuu sidoo kale qorsheynayaa inuu booqdo Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah safarkiisa gobolka. booqashada Rubio waxay ku soo beegmaysaa ka hor kulan la filayo in mas'uuliyiinta Maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ay ku yeeshaan Sacuudi Arabiya. kulankaasi wuxuu diiradda saari doonaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ukraine iyo Ruushka, sidiina dib loo hagaajin lahaa xiriirka Maraykanka iyo Ruushka. bayaanada labada dhinac midkoodna ma xusin in laga hadlay arrimaha Ukraine. booqashada Rubio waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweyne Trump uu soo jeediyey qorshe muran badan dhaliyey oo ah in Maraykanku uu la wareegayo Gaza lagana saarayo Falastiiniyiinta iyagoo loo masaafurinayo Masar, Urdun iyo dalal kale, iyagoo aan la siin wax xuquuq ah oo ay ugu soo laaban karaan dhulkooda. wuxuu sidoo kale soo jeediyey in Gaza laga dhigayo Riverada bariga dhexe. qorshahan waxaa si adag u diiday dalalka Carabta iyo dunida Muslimka iyo wadamo kale oo badan, kuwaasoo ku tilmaamay inay tahay barakicin iyo isirsifayn. militariga Israa'iil ayaa ka baxay dhowr tuulo oo koonfurta Lubnaan ah, balse weli wuxuu ku sugan yahay 5 goobood oo istiraatiiji ah oo ku teesan xadka xilli ay dhamaatay muddadii loogu talagalay inay ka baxaan sida ku xusan heshiiska xabad joojinta Lubnaan, sida uu sheegay ila amaana oo Lubnaan ku sugan Talaadadii. militariga Israa'iil wuxuu ka baxay dhammaan tuulooyinka xadka ku teesan marka laga reebo 5 goobood, halka ciidanka Lubnaanna uu si tartiib u gelayo aagaas sababo la xiriira walxaha qarxa oo la dhigay iyo burburka ka jira wadooyinka, ayay AFP u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Lubnaan oo aan magacyadooda la shaacin. Israa'iil waxay isniintii ku dhawaaqday inay ciidamo ku sii hayn doonto 5 goobood oo istiraatiiji ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. meelahan ayaa kala ah buur ku dhow Labaniya oo ka soo horjeeda magaalada xuduudda ah ee Israa'iil ee Shalom, buurta Jabal Balat oo ku taala meel ka soo horjeeda iyo Nasraid, buur ku taala dhanka ka soo horjeeda Avivim iyo Malkiya, mid kale oo ka soo horjeeda Margolet iyo buur ku taala agagaarka Metula.
kadib bixitaanka ciidamada Israa'iil ee militariga Lubnaan ayaa ku dhawaaqay inay xalay la wareegeen dhowr tuulo iyo magaalo oo ku yaala koonfurta Lubnaan. bayaanka rasmiga ah ee ciidamada Lubnaan ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay la wareegeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka mid yihiin Abasiya, Majidiya, Kafarkila, Marjayaun, Odessa, Markaba, Hawla, Mais, Al-Jabal, Balida, Mahbib, Marun al-Ras, Yaron, Bint Jabel iyo dhowr aag oo kale oo u dhow xadka Israa'iil. ciidamada Lubnaan waxay sheegeen in ciidamadoodu ay howlgalkaas ku wadaan iskaashi la leeyahay guddi Mareykana oo hogaaminaya oo dusha kala socda xabad joojinta iyo sidoo kale ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ee Lubnaan UNIFIL. intaa waxaa dheer kooxda injineerada ah ee ciidamada Lubnaan ayaa ka shaqeynaya nadiifinta goobaha furista wadooyinka iyo in si ammaana loo qarxiyo walxaha aan weli qarxin ee laga tegay dagaalada. dowladda Lubnaan ayaa uga digtay shacabka inay taxadar muujiyaan oo ay dib u dhigaan inay si degdeg ah ugu laabtaan goobaha dhawaan la baneeyay. degmada Hawla dadweyne ayaa isugu soo ururay iridda tuuladaasi iyaga oo sugayay fasax ay uga helaan ciidamada si ay ugu laabtaan guryahooda. dhanka kale ciidamada Lubnaan oo ay garab siinayaan UNIFIL ayaa bilaabay nadiifinta wadooyinka Kafarkila si dib loogu furo marinada muhiimka ah. ciidanku sidoo kale wuxuu galay Odessa halkaas oo ay ka wadaan nadiifinta walxaha qarxa ee Israa'iil uga tagtay. warbixino ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay hore ugu sii gudbeen Kifarshuba inkasta oo ay baxayeen. diblomaasiyiinta sare ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa talaadadii ku kulmay Sacuudi Arabiya si ay uga wada hadlaan sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka burburay ee labada dal iyo sidii loo bilaabi lahaa dadaalo hordhac ah oo lagu soo afjarayo colaadda Ukraine. labada dhinac ayaa hoos u dhigay rajada laga qabo in kulanka heerka sare ah kii ugu horeeyay ee Mareykanka iyo Ruushku yeeshaan tan iyo markii uu madaxweyne Donald Trump uu xafiiska la wareegay uu keeno isbedel weyn. si kastaba ahaatee xaqiiqda in wadahadaladani ay socdaan ayaa walaac ka abuuray Ukraine iyo Yurub kadib markii Mareykanku uu waayada dambe la muujiyay xiriir furan oo la xiriira Crimea. suxufiyiinta ku sugan Riyaad ayaa sheegaya in kulanka diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Ruushka uu subaxnimadii talaadada ka bilowday qasriga Diriya ee caasimadda Sacuudiga. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Kiev aan lagu casumin wadahadaladan ka dhacaya Riyaad. hogaamiyayaasha Yurub ayaa isugu yimid Paris isniintii si ay uga arrinsadaan sida ay uga falcelinayaan isbedelka siyaasadeed ee lama filaanka ah ee xukuumadda cusub ee Trump ay la timi. waxaa sidoo kale la filayaa in ajadaha wadahadalada lagu daro diyaarinta shir suurtagal ah oo dhexmara Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa si xoogan u riixaya in si degdeg ah xal loogu helo colaadda 3 sano jirsatay ee Ukraine halka Ruushkuna uu u arko furfurnaanta Trump fursad uu ku helayo tanaasul siyaasadeed. madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Kiev waxba aysan ka ogeyn wadahadaladan ka dhacaya Riyaad sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Ukraine. wuxuuna carabka ku adkeeyay in aysan aqoonsan doonin wax heshiis ah oo laga gaaro iyaga la'aantood. Zelensky ayaa ku qoray baraha bulshada in heshiis kasta oo nabadeed uu u baahan yahay damaanad amni oo xoogan oo la isku halayn karo, arrintaas oo ay hore u dalbadeen Faransiiska iyo Ingiriisku. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Guo Chokan ayaa ku soo dhaweeyay dadaalada nabadda ee Ukraine isagoo intaa ku daray waqtigaas oo kale waxaan rajaynaynaa in dhammaan dhinacyada iyo daneeyayaashu ay ka qayb qaataan wadahadalada. Ruushka ayaa ka hor shirkan sheegay in Putin iyo Trump ay doonayaan in laga gudbo xiriirka aan caadiga ahayn isla markaana aysan u arkin in Yurubiyaanku ay wax doora ku yeeshaan miiska wadahadalka.
wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov iyo la taliyaha sare ee Putin Yuri Ashkov ayaa la kulmi doona xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio, la taliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo ergeyga gaarka ee bariga dhexe Steve Witkoff. afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in wadahadaladu ay diiradda saari doonaan soo celinta xiriirka buuxa ee Ruushka iyo Mareykanka iyo sidoo kale wadaxaajood la xiriira suurtagalnimada heshiis laga gaaro Ukraine iyo abaabulka kuna dhexmara labada madaxweyne. Moscow oo sanado badan danaynaysay inay dib u riixdo joogitaanka NATO ee Yurub ayaa si cad u muujisay rabitaankeeda ah in ay la yeelato wadahadallo laba geesood ah oo ay la gasho Mareykanka, kuwaasoo daboolaya arrimo ballaaran oo amni halkii keliya laga hadli lahaa xabad joojin suurtagal ah oo ku saabsan Ukraine. ka hor duulaankii bishii February 2022 Putin wuxuu dalbanayay in isbahaysiga military ee NATO uu ciidamadiisa, qalabkiisa iyo saldhigyadiisa ka saaro dhowr wadan oo bariga Yurub ah, kuwaas oo xilligii dagaalkii qaboobaa hoos tegi jiray Moscow. rajada laga yaabo in wadahadaladani ay horseedaan heshiis lagu joojiyo dagaalka Ukraine weli ma cadda. Ruushka iyo Mareykankuna waxa ay shirka ku tilmaamayaan bilowga geedi socod dheer oo suurtagala. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Tammy Bruce ayaa sheegtay ma aaminsani in dadka ay tani u arkaan arrin ku saabsan faahfaahin ama horumar rasmi ah oo laga gaaray wadaxaajoodka. dhanka kale, la taliyaha sare ee Putin Yuri Ashkov ayaa warbaahinta dowladda Ruushka u sheegay in wadahadaladu ay diiradda saari doonaan sidii loo bilaabi lahaa wadaxaajoodka ku saabsan Ukraine. labada dhinaca Ukraine iyo Ruushka ayaa hore u diiday wax tanaasul dhuleeda, halka Putin uu sanadkii hore dalbaday in Kiev ay ciidamadeeda kala baxdo dhulka ballaaran midkii hore looga haystay. weli ma cadda in wadahadaladu ay horseedi doonaan xabad joojin rasmi ah oo lagu soo afjaro dagaalka Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii ku sugnaa Turkiga si uu wadahadalo uga yeesho dagaalka Ukraine iyo xiriirka gobolka, isagoo la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ayaa lagu wadaa inuu Arbacada gaaro Sacuudiga, balse afhayeenkiisa ayaa sheegay inuusan qorsheynayn inuu la kulmo wakiilada Mareykanka ama Ruushka ee ku sugan Riyadh. toddobaadkii hore Zelensky wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo Putin, balse kaliya marka ay Kiev iyo xulafadiisu ay ku heshiiyaan mowqif midaysan oo ku aadan dhamaadka dagaalka. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii sheegay inuusan wax faa'iido ah u arkin in Yurubtu ay ka qayb galaan wadahadalada Ukraine. xaqiiqda ah in wadahadaladani ay ka dhacayaan Riyadh ayaa loo arkay arrin xasaasi ah. Sacuudiga oo hore uga mid ahaa dowladaha Mareykanku gudoomiyay xilligii maamulkii hore ayaa hadda dib loogu soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed kadib soo laabashadii Trump. Yurub waa goobta caadiga ah ee Mareykanka iyo Ruushku ay ku wada xaajoodaan, balse xilligan taasi suurtagal ma aha, ayuu yiri James Dersey oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Singapore. Ruushku wuxuu wadahadaladan u gelayaa isaga oo haysta guulo military oo uu dhowaan ka gaaray dagaalka, halka Kiev oo wajahayso halis weyn oo ah in Mareykanku uu joojiyo gargaarka military, arrin uu Trump muddo dheer dhalisanaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu gacan ka siinayo Iran dadaalada ay ku doonayso inay lacago ugu gudbiso Xisbullah si ay dib ugu soo ceshato awoodeedii iyo saameynteedii dalka Lubnaan. Saar waxa uu eedeyntan u jeediyay kulan uu la yeeshay koox labada xisbi ka tirsan oo ka socday sanadka Mareykanka iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Morgan Outridge. kooxdan sanatarada ah ee Mareykanka waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham, Dan Sullivan, Sheldon Whitehouse, Richard Blumenthal, Jenny Ernst, Adam Schiff iyo Andy Kim. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Saar ayaa lagu sheegay in wasiirku uu u sharaxay sida Iran
ay dadaal xoogan ugu bixinayso inay dhaqaale ku shubto Lubnaan si ay u xoojiso Xisbullah iyadoo adeegsanaysa wadooyin kala duwan oo uu ku jiro iskaashi lala yeelanayo Turkiga. waxaa jira dadaal xoogan oo ay Iiraan ku doonayso inay lacag ugu gudbiso Lubnaan si ay Xisbullah dib isugu soo abaabusho. dadaalkan waxaa lagu fulinayaa wadooyin kala duwan oo ay ka mid tahay iskaashi lala yeesho Turkiga, ayuu yidhi Saar. sidoo kale Saar wuxuu muujiyey walaaca uu ka qabo barnaamijka nuclearka Iiraan, isagoo sheegay in Tehran ay isku dayayso inay ka soo kabato caqabado ay la kulantay sanadkii la soo dhaafay. wuxuu ku tilmaamay horumarka ay sameynayso Iiraan mid walwal leh, taasoo sii xoojinaysa caqabadaha ka dhashay dhaqdhaqaaqa Iiraan. markii laga hadlayay xaaladda ka taagan Suuriya, Saar waxaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan qorshaha Maraykanka ee ka bixitaanka ciidamada dalkaasi. sida laga soo xigtay xafiiskiisa, Saar waxa uu tilmaamay in wakhtigan uusan ahayn mid ku habboon bixitaanka maadaama dagaalka lagula jiro ISIS uu weli socdo, sidoo kalena ay jirto xaalad cusub oo ka taagan Syria oo ay ku jiraan hanjabaado ka dhana ismaamulka Kurdiyiinta. safiirka Israa'iil ee Maraykanka Yichel Liter ayaa axadii sheegay in Masar ay dhisatay saldhigyo militari oo ku yaala Sinai, kuwaas oo ku tilmaamay in kaliya loo adeegsan karo weeraro iyo hub weeraro ah. Liter waxa uu arrintan ku tilmaamay jebinta cad ee heshiiskii nabadeed ee u dhexeeyay Masar iyo Israa'iil kadib ku dhowaad 45 sano. Liter waxa uu sidoo kale xusay in dowladda Israa'iil ay si dhow u soo bandhigi doonto kororka ciidanka militari ee Masar ay ka wado Sinai. wuxuu hadalkan markii hore ka sheegay kulan uu la yeeshay ururada Yuhuudda Maraykanka 28 January. tobanaal maalmood ka hor, Masar waxa ay sii daysay muuqaalo muujinaya awoodda militari ciidankeeda, taas oo ka koobnayd boqolaal taangiyo, diyaaradaha dagaal, helikobtaro iyo maraakiibta dagaal ee badda. bishii May la soo dhaafay, sarkaalka howlgabka ah ee Lieutenant Colonel Eli Dekel oo 60 sano cilmi baaris ku hayay Masar, wuxuu sheegay in Masar ay kordhisay ciidamadeeda gaashaaman iyadoo ku dartay boqolaal taangiyo dheeraad ah. safiirka Israa'iil wuxuu xusay in xadgudubyada ka socda gacanka Sinai ay yihiin arrin laga doodi doono, waayo lama aqbali karo. wuxuu intaa ku daray in arrintani muddo dheer la iska indhatirayay, waxaan arrintan si degdega oo go'aan leh u duldhigi doonaa miiska. waxaa dhowaan la furay akadeemiyada militariga, waxaana ka soo qayb galay madaxweyne Sisi. ardayda tababarka qaadanaysay waxay baranayeen daciifnimada taangiyada Merkava. 2 maalmood ka hor intaas, afhayeenka ciidamada Masar wuxuu soo saaray filim dhiirigelin ah isaga oo sheegay, waxaan diyaarinaynaa ciidankeena haddii Israa'iil aysan dhegaysan taladeena xigmadda leh ee ah in aysan qabsan Philadelphia. bal haddaanu dhegaysanno safiirka Israa'iil ee Maraykanka Yichel Liter oo isagu arrintaa ka hadlaya. bal waxa uu yiri, bases being built that can only be used for offensive operations, for offensive weapons. That's a clear violation. Now, for a long time, it's been shunted aside, but this continues. And this is going to be an issue that we're going to put on the table very soon and very emphatically. bal haddaynu kusoo gabagabino dhinaca iyo Masar ayaa isniintii martigelisay shirkii afraad ee isbahaysiga caalamiga ee hirgelinta xalka labada dowladood. shirka waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda iyo socdaalka ee Masar Badri Abdulatey iyo Philippe Lazarani oo ah gudoomiyaha hay'adda qaramada midoobay ee UNWA, Zikri Kag oo ah isuduwaha sare ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimo iyo dibudhiska Gaza, iyo sidoo kale wakiilo ka socda in ka badan 35 wadan, ururo iyo hay'ado caalami ah iyo kuwa goboleedba. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar Danjire Tamim Khalaf ayaa sheegay in wasiir Abdulatey uu jeediyey khudbad furitaanka isaga oo carabka ku adkeeyey sida ay Masar uga go'an tahay hirgelinta xalka laba dowladood.
wasiirka ayaa xusay inay lagama maarmaan tahay in la dhiso dowlad madax bannaan oo falastiini ah oo ka koobnaan doonta dhammaan dhulka qaran ee falastiiniinta oo ay ku jiraan daanta galbeed, marinka Gaza, iyadoo bariga Qudus ay u noqonayso caasimadda Falastiin. Cabdilatiif waxa uu sheegay in tani ay tahay xalka kaliya ee suurtagalka ah si loo gaaro nabad iyo ammaan dhammaan shucuubta gobolka. wuxuu kale oo uu bogaadiyey hindisaha ay Sacuudigu hogaaminayso ee lagu dhisay isbahaysigan, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay iskaashi wada jira si loo hirgeliyo qorshahan. sidoo kale wasiirka ayaa ammaanay doorka Mareykanka ee keenista heshiiska xabad joojinta, isagoo xusay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo socodsiinta heshiiskaasi iyo hirgelinta dhammaan saddexda marxaladood ee lagu heshiiyey. dhanka kale wasiir Cabdilatiif waxa uu mar kale xaqiijiyey mowqifka adag ee Masar ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta la barakiciyo ama laga raro dhulkooda. wuxuu cadeeyey in mowqifkan uu taageero ballaaran ka haysto dunida Carabta iyo beesha caalamka, maadaama tallaabo kasta oo barakicina ay jebinayso sharciga caalamiga ah iyo kan qaramada midoobay, sidoo kalena ay khatar ku tahay xasiloonida gobolka. intaa kadib wasiirka arrimaha dibadda ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda bini'aadanimo ee degdega ah ee Gaza, isagoo ku baaqay in la hirgeliyo qorshe horumarineed oo degdeg ah si loo hubiyo in Falastiiniyiintu ay ku sii nagaadaan dhulkooda, halka dib u dhiska Gaza lagu fulinayo waqti cad oo qeexan. wuxuu sidoo kale xusay dadaalada Masar ee lagu horumarinayo qorshe dhammaystiran oo dhowr waji leh si dib loo soo nooleeyo Gaza loona dhiso. gudoomiyaha guud ee UNRWA Philip Lassarani ayaa uga mahad celiyey Masar taageerada joogtada ah, isagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii wadista doorka si loo hubiyo in xabad joojintu ay sii waarto lana fuliyo heshiiska dhammaan saddexdiisa marxaladood. wuxuu xusay doorka lama huraanka ee UNRWA ay ku leedahay bixinta adeegyada muhiimka ah ee ay Falastiiniyiintu u baahan yihiin, wuxuuna ka hadlay caqabadaha ay kala kulmayaan Israa'iil. wuxuu sidoo kale ku nuucnuucsaday baahida degdega ee gargaar cunto iyo jawaab midaysan oo wax lagaga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee hadda jirta. dhankeeda Sigrid Kaag oo ah isuduwaha sare ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimo iyo dib u dhiska Gaza iyo isuduwaha nabadda ee bariga dhexe ayaa bogaadisay doorka muhiimka ah ee Masar ay ka qaadatay suurtagalnimada heshiiska xabad joojinta oo ay la fulisay Qatar. Mareykanka waxay rajeynaysaa in heshiiskan la xoojiyo lana fududeeyo gelitaanka gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza. Kaag waxay sidoo kale soo bandhigtay qiimeynta hordhaca ah ee kharashka dib u dhiska Gaza, waxayna hoosta ka xariiqday in la gaaro xalka siyaasadeed ee dhammaystirka arrinta Falastiin. intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii Sooyaal TV iyo Cabdirashiid Geelle. inta aynu ku kulmi doono barnaamij la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafno.